الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. إلهي بقى محل نبضي النحريس نبض قريو كركي ساعات النبي عليه الصلاة والسلام. والله ليال سؤال هذا بارك الله فيكم. مرلبات يو درسجين بلوني كسب سنة تعليم الصلاة برشادة صلاة قيبتي سلبات كسر هذا والله ليال انتهينا درسجين قد قلين. waxaan idinka codsanayaa barakallahu fiikum inaad channelkan aad saartaan subscribe like iyo share aad la wadaagtaan asxaabta. rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam addaalu cala alkhayri ka faacili, qofka wanaagga faafiya waa sidii qof sameeyey oo kale ajarkiisu helaya. markaa si aad walaaluhu uga faa'iidaystaan casharkan barakallahu fiikum sii shargareeya like saara jazaakum allahu khayran oo ka qayb qaata dhiirigelinaysaan in casharadan sii socdaan. waxaan ka hadlaynaa caawa xukmu taariki salaa, qofka salaada ka taga xukumkiisa. salaadu waa laf-dhabarta islaamka sidaynu horeba uga soo hadalnay. nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo qur-aanka kariimka waxaa laga soo wariyay axaadiis badan oo sheegaysa in nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamay qofka salaada ka taga inuu gaaloobay. aayado badan oo qur-aanna waxay tilmaamayaan ahmiyadda ay leedahay salaadu. ilaahay wuxuu yihi wa aqimi salaa طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ilaahay isagoo rasuulka amri wuxuu yihi salaada oog gelinka hore iyo gelinka dambaba habeenkii, waayo wanaagga iyo salaadu waxay kaxaysaa xumaanta. saasuu ilaahay ku tilmaamay. آيات كلا إلهي وحده وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صلاة أبن محمد أما قف كستو مؤمنة وهي الصلاة وحكاري ليسا حماتا فحشيكا إيو منكركا. إلهي وحده آيات ستحات فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة مركب حسي الشام صلاة أوغا ودقالك كسو الله عبطان وسيفاها لغتان صلاة أوغا بإلهي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوت. صلاة وفرل إلهي كفر ليالي ضدك المؤمنين تاب. وحيد رسولك عليه الصلاة والسلام سيد إمام أحمد صاصاري مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وترك الصلاة بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وحيد رسولك قف مؤمنك يقال لماذا وحاول حيسا والصلاة يعني صلاة أيا لغو كلا قرانيا قفك مؤمنك أي قفك كافرك. وحو كالو شيء النبي عليه الصلاة والسلام من حافظ عليها كانت له نورا. قفك الصلاة إلى اليوم نور يفتين بين نقطها وبرهانا ونجاة يحجو يبدبادو يوم القيامة ما أنت يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. قفك إلى نوع صلاة برهان مهليو حجو ما أنت يوم القيامة افتين مهليو بدبادن مهليو. مركا صلاة ومهم والله فدبرتا دينتا إسلامكا. آيادها سي أحاديثتا إنو أخريني waxay tilmaamayaan ahmiyadda iyo kaalinta ay salaadu ku leedahay diinta islaamka. haddaba su-aashu waxa weeye qofka ka taga sida aynu axaadiista faraha badan soo aragnay. culimo badan waxay daliishadeen qofka salaada ka tagay isagoo weliba qirsan inay salaadu waajib tahay oo caajisnimo iyo shaydaan waswaaskiisa ka xoog batay arrimo kale salaadii tukan waaya inuu yahay kaafir. waa sida culimo badan ay ku tageen. culimo kalena waxay yidhaahdeen waa faasiq lama gaalaysiinayo, laakiin qofka waa in la ciqaabo. ciqaabkiisuna wuxuu noqonayaa xabso ilaa an yusalli, waa in la xabsiyo oo la xidho oo jeelka la geliyo ilaa intuu ka tukanayo la ciqaabo, si aanu dadka ugu noqon qudwa sayi'a linnaas, tilmaam xun si aanu dadka ugu noqon oon loogu dayan. marka madaahibta muslimiinta qaar badan waxay ku tageen walaalayaal in qofka salaada diida kaa isagoo laysku raacsay qofka yidhaa salaadu waajib ma aha inuu gaal yahay, waa laysku waafaqsay uu xerada islaamka ka baxayo. laakiin qofkani culummadu isku khilaafeen waa qof qirsan salaada waajibnimadeeda laakiin uga tegaya caajisnimo iyo waswaas shaydaan oo ka xoog batay iyo waxyaabo kale arrimo adduun la xidhiidha, laakiin qirsan weli salaadu inay waajibtay. marka
maadaama ay culummadu isku khilaafeen waxaa muhiima qofka muslimka maadaamuu qof muslima yahay dee waa inuu islaamnimada ka dhab sheego. ilaahayna wuxuu leeyahy yaa ayuha aladiina aamanuu udkhuluu fi silmi kaafa, dadka muuminiintow islaamnimada wada qaata. marka qofka waxa weeye inuu yidhaahdo waanan shahaadanaya ashhadu an laa ilaha illa allah waashhadu anna maxamedan rasuulullah, haddana wuxuu ilaahay amray oo salaada ugu muhiimsan tahay lama imanayo. taas waxay ka tarjumaysaa inaan islaamnimada uu sheeganayaa aan ahayn mid ka dhab ah oo xaqiiqo ka ah inaan ahayn. maalinta yowmal qiyaamaha dadka mu'miniinta ah markay weydiinayaan gaalada maxaad ku kasbatay naarta, waxay ku jawaabaan waxa weeye lam nakun min almusalliin, maanaan tukan jirin. waa su-aasha waa jawaabta ugu horeysa bixin doonaan gaaladu marka la warsado qiyaamaha la yidhaahdo war naarta maxaad ku kasbateen, waxay odhanayaan lam nakun min almusalliin, maanaan tukan jirin. qofka muslimka iyo qof gaalana ilaahay subxaana watacaala cadaaladiisa ma aha in qofkii tukan jiray iyo qofkii aan tukan jirin labadaba jannada ay wada galaan biduuni ciqaab, iyadoon la ciqaabin de kii salaada soo tukan waayo. tusaalehaan madrasada marka qofku dhiganayo haddii imtixaan la qaado, imtixaankii marka la qaado kii dadaalay imtixaanka su-aalihii saxay iyo kii dhacay een su-aalaha sixinay saaqidka ayaan waxba soo akhriyin, haddii macallinku yidhaahdo isku darajaan siinaya labadaba, weliba abaalgud baan labadaba siinaya, dee cadaalad maaha. afanajcalu lmuslimiina kalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumuun. ilahay wuxuu leeyahy dad muslimiina oo ilaahay u hogaansamay iyo qolo mujrimiina oo ilaahay amarkiisa diiday, ma isku si baanu ugu abaalgudaynaa maalinta yowmal qiyaamaha oo isku meel baan ayaanu geynaynaa? waa maya. waa in qofka la soo ciqaabo salaada diiday, kabacdi ciqaabkiisa markuu soo dhammaysto ayuu jannada gelaya. laakiin qofkii salaada tukan jiray ilaahay ku xidhnaa subxaana watacaala cala tuul inuu jannada ku galo ayaa laga yaabo. maa lakum kayfa taxkumuun, isku mid maaha qof tukan jira iyo qof aan tukan jirin. qofka muuminkaana qof kasta wuxuu soo shaqaystay ayuu maalinta yowmal qiyaamaha helaya. salaaduna walaalayaal waa shaahid calaa iimaani lmu'min, waa makhraati kacaysa qofka muuminka iimaankiisa. kullu nafsin bima kasabat rahiina ilaa asxaaba alyamiin fi jannaatin yatasaa'aluun can ilmujrimiin maa salakakum fi saqar qaaluu lam nakun min almusalliin. kullu nafsin bima kasabat rahiina, naf kastaa waxay shaqaysatay ayuunbay u rahmantay maalinta yowmal qiyaamaha. qofkii bilaa camalka ahaa ee salaadan tukan jirin faajirka faasiqa wuxuu u rahmanaanayaa qiyaamaha camalkiisii xumaa. dadka muuminiinta ayaga ee midigta kitaabka ka qaadanaya ee soo tukan jiray iyagu rahni ma gelayaan, jannaday gelayaan buu ilahay yidhi fii jannaatin yatasaaluun, jannaday gelayaan. markaasay isku warsanayaan can ilmujrimiin, gaaladii waxay weydiinayaan iyo mujrimiintii aan tukan jirin maa salakakum fii saqar, maxaa saqare maanta idin dhex dhigay? waxay ku jawaabayaan mujrimiintu lam naku min almusalliin, maanaan tukan jirin, dadka tukada kamaanaan mid ahayn. markaa tarku salaa yuujib assuluuk fi saqar, salaadoo laga tagaa waxay waajibisaa oy keensataa qofku inuu saqaro galo. allatii laa tubqi walaa tadar, saqarina waa midaan waxba reybsan oo aan waxba daynin oo qofka jirkiisa leefaysa weeye. lawaaxatan lilbashar jazaa'an wifaaqa laa yadlimu rabbuka axada. taasi waa abaalmarin ilaahay subxaana watacaala cadaaladiisu keensanayso. ilaahay cidna ma dulmiyo subxaana watacaala, laa yadlimu rabbuka axada. marka qofkii dumiya tiirka islaamka dumiya iyo lafdhabartiisa qofka dumiya, dee ilaahay subxaana watacaala oo caasiya, amarkii rabbigiina diida, tacaalimtii iyo diintu rasuulku la yimayna ka baxa, qofkaasi dee muu qaadan dariiqii toosnaa. aayaadkii ilaahayna weliba lagu dul akhrinayo oo maalin walba aayaadkii salaada ka sheekeynayo lagu dul akhrinayo, qofkaasi maaha qof ilaahay subxaana watacaala jidkii toosnaa siraada mustaqiim qof maray maaha oo qaatay. waa qof ka kibray ilaahay subxaana watacaala cibaadadiisa ka kibray. inuu ilaahay amarkiisa qaato waa qof ka kibray oo diiday